ma iman kartid nimankan hadeer ku wada ee ku soo wada inay ku keenaan gobolka Soolna ma qaadi karaan amaanadaada kuma aali karaan runtan ku sheegaya saacadan aan kula hadlano anagu waxaanu joognaa gobolka Sool waxaanu ku dhex suganahay gobolka Sool waxaanu joognaa deegaankayagii annaga amnigiisa qaabilsan annaga wax weey wax naga wadiinaya annaga wax weey ciidankeedii bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ku qabanaa shirka jiraayid oo ku saabsan xildhibaanada dawladda Ingiriiska qaybtooda oo la sheegay inay ku sugan yihiin meesha dhoo Hargeysa rabaan inay si dhumaanaysi ku yimaadaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn qaybo kamid ah oo waliba Cayn ma imaanayaan waxay rabaan inay yimaadaan Soolna waxa ku sugan oo jooga ciidamada SSC waxay uga digayaan beesha caalamka iyo dawladda Ingiriiskaba iyo shakhsiyaadka uu horkacayo Mr. Giffen Willis maalintii horena u doodayay qoladii SNM ee lahaa intraafan siinana ama sidoo kale yaqaanaba Soomaaliland ku sheega iyadoo ciidanku SSC iyo ciidamada waxsaynta gobolka ama deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ay ku sugan yihiin deegaanadoodii joogaana gobolka Sool waxaan leenahay annaga joogno gobolka Sool hadii aan annagana soo marin oo waxa weey aan nagala tashan oo dawladda federaalka aqoonsigeeda iyo waxa weey aan ku soo siniyadu warqad ay soo saxiixday ama beesha caalamku waxa weey aan ku soo arad garayn inaad timaado gobolka Sool Sanaag iyo Cayn ma iman kartid nimankan hadeer ku wada ee ku soo wada inay ku keenaan gobolka Soolna ma qaadi karaan amaanadaada kuma aali karaan runtan ku sheegaya saacadan aan kula hadlano anagu waxaanu joognaa gobolka Sool waxaanu ku dhex suganahay gobolka Sool waxaanu joognaa deegaankayagii annaga amnigiisa qaabilsan annaga wax weey wax naga wadiinaya annaga wax weey ciidankeedii ma aha nin deegaanka u dhalan oo maleeshiyada oo argagixisa oo wax weey magac dawladda sheeganaya inuu ku soo kaxaysto deegaan dad leeyihiin ma aha deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ma aha Soomaaliland waxay hoos tagaan dawladda federaalka waxay ka amar qaataan dawladda federaalka ciidankeeduna hoos tagaan dawladda federaalka waxaan uga digaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba dawladda Ingiriiska xildhibaanada ka socda ee Giffen Willis oo horkacayo ee jooga magaalada Hargeysa inaan iman karin gobolka Sool waa inay ka joogaan oo ay taagnaadaan goobta hadir joogaan hadii ay yimaadaan aqoon xumada ay kala kulmaan iyo dhibaatada ka soo gaadha hadhowta anagu caalamku nagu eedayo iyaguna hadhowta anagu nagu eedayaan ma dhahan wana loo qariyay haddaan u cadeynana ma iman karaan annaga ku soo gobolka Sool annaga joogna annagu deegaankayga annaga wax naga wadiinaya Soomaaliland waxa weey xakamaha waa maleeshiyad waa argagixiso waxa weey dal iyo deegaan aan lahayn bay sheeganayaan ciidankii xaqudurka SSC ba ku sugan ee dib u xoreynta gobolka Sool ba ku sugan iyaga jooga la sacaano iyagana wax laga wadiinaya intaas waa inta weey waxaan kaloo halkan kala hadlayaa qolama aan dhawta ka hashay dharkeen geeyo oo u shaqeysa ama dabaqoodhi waa qodol dhaw argixisada SNM qolaasoo qola ka jeeda Sool Sanaag iyo Cayn oo dhalatay gobolka Sool gaar ahaan degmooyinka Dharkeyn iyo Kalabayd annagu waanu joognaa Kalabayd waanu joognaa Dhumay waanu joognaa Dabataag waanu joognaa Saxdheer waanu joognaa Qurnay waanu joognaa meel kasta oo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ciidanka SSC ku sugan yahay mana niman dhubaanta dhexdiisa cadawad ka wada ka shaqeynaya isku dhufasho ka wada hawlo aan loo baahnayn oo aan dalka deegaanka u baahnayn ka shaqeynaya annagu waxaanu ka shaqeynaynaa dib u xasalinta nabadgelyada wadaagida sidii deegaankan loo kicin lahaa cadawga iyo waxa weey dadkan ku soo duulay hadda rawaanu joognaa kama aan tagin marka joogayna waanu joognay waxaanu arkaynaa niman dhubaanta oo deegaanka soo booqday waxa weey dadka baahan walaal wuxuu keenay hadaan doonano dhibaato yana waxa weey iyaga isku dhacno annagu ninkan doonano waa nin saaqa waa nin doora
nin dhumaantaana wax falmayno laakiin haddii dhumaantii la isku hormariyo oo ayagu anaga nala hadlaan oo ayagu anaga wax weey ay isu kaydayaan waxay tagaysaa in anagu iyaga iyo aan wasinano oo wax weey isku mid aanu ahaanaan baan rabnay oo aanu iska celinayno markaa laakiin hadday nimanka soo raacaan cadawayga aanu arkanaa waxaan uga digayaa mar labaad iyo mar saddexaadba nimankan isku sheegayay gudoomiyaasha degmooyinka Dharkan iyo waxa weey kala baydh ee magaalo kama hadlin baadiyaha ka hadlay ka sheekeynayay waxaan leenahay jooga dad waxa tiin dhumaanta dad lagu shaqaysanaya noqonina deegaankiina annaga waxa weey inii ah ciidan annaga dawladda inii ah annaga waxa weey hadda waxa ka dambeeyay waxaan la qabanana hadarna waxaan la qabanaa oo in la shaqeynana oo deegaankayga dhibaatada joogta iyo abaarta haysta iyo wixii ka jira wax naga xalinana ma oran kartaan mana noqon kartaan Somaliland mana aha goboladaas deegaanadaasna maaha soolna maaha salaagna maaha ayna maaha waa deegaanada SSC ciidan bay leedahay dawlad bay leedahay dawladda ka shaqeynayso